tuunka boobka qayb ka mid ah saadkii ciidamada danab ee uu taageero Mareykanka hase yeeshee hadda uu joojiyay dhaqaalihii uu ku bixin jiray ayaa lagu hadla galay saraakiil kale oo caan ah waxaana sida xogaha soo baxay ay tilmaamayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu amray in cid walba oo uu la galo kiiskaas lugaha ha ahaadaan madaxda ugu sareysa wadanka ee xabsiga loo taxaabo isla markaana tilaabo degdeg ah laga qaado sida xoguhu ay sheegayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa hadda arrintan lugaha la soo gashay waxaana socda baaritaano xoogan oo lagu hayo xubnaha ugu badan ee wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliska militariga ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan xeerlaantu waxay sheegteen cid walba oo arrintan ay ku soo cadaato maxkamad la soo taagi doono isla markaana aan looga aba yeelinin lunsashada saadka ciidamada iyo arrinta fadeexad u abuurtay dowladda federaalka Soomaaliya in la lunsaday qayb ka mid ah raashinka loogu talagalay inay quutaan ciidamada danab ee Mareykanku uu tababaro waxa ceeb weyn ay ku noqotay wadanka waxa sidoo kale ay dhaawac weyn u geysatay aaminaadii lagu qabay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo hore aysan u soo bixin wax lunsasho saadka ciidamadaas Mareykanku wuxuu joojiyay dhaqaalihii ciidamadaas uu ku taageerayay iyo xitaa tababaradii sidoo kale waxa uu hakiyay oo uu kor u hayaa lacag dhan $100 milyan oo uu hore u ballan qaaday inuu ku bixinayo dhismaha 5 saldhig oo waaweyn oo ciidamada danab ay ku yeeshaan gudaha Soomaaliya arrintan ayaa culays weyn waxay ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana laga cabsi qabaa haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan jawaab cad loo bixin in ciidamada danab burbur soo wajaho amaba kala daadasho ay galaan oo ay waayaan cid tababar isku xiran siisa iyo cid dhaqaalahooda sidii ay ku heli jireen uu siisa maadaama dowladdu awood dhaqaale oo ay ciidamadaas mushaarkooda ku dabarta aysan lahayn danab waa mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan dalka waxaana ay qaataan tababaro gooni ah iyadoo Mareykanku tan iyo 2017 ciidamadan gacanta uu ku hayay saadkooda qalabkooda iyo tababaradoodana isagoo mas'uuliyadeeda dusha uu saartay